واتهاي dhageystayaal ka soo laabano dhankii oo daafurka barnaamijkii haatana waxaan soo qabanayaa qiso jacayl oo dhab ah ka dhacday magaalada Muqdisho ee degmada Dharkeenley qisadani waxay qabsatay laba arday dhageystayaal qisadani ayaa ciwaankeedu waxa uu tilmaamayaa inuu yahay ku kala tagi Facebook waa qisada qaybta ugu horeysa ama qaybta koowaad garab ay tahay khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha lixaad ee 2019 ayaa stuudiga waxa igu imaaday gabar aad u qurux badan misna loo maleeyo xuraal caynta adduunka gabadhaasi si wanaagsan ayaa ku soo dhabeeyay kadibna waxay igu dhaaday maxamed jacayl magacaygu waa ismahan waxaan ka socdaa degmada Dharkeenley waxaan rabaa in aan maanta dhageystayaashan u soo gudbiyo qiso jacayl oo dhab ah misna aniga igu dhacday kadibna anigoo farxad iyo kalgacayl iga muuqato ayaan soo dhaweeyay inantaasi kadibna markii qisadii ay bilowday in ay ka sheekeyso run ahaantii meelal qaar ah saameynteedu waan ku dhex ilmeeyay stuudiyaha run ahaantii ismahan waxay ku dhahday anigu waxaan ahaa arday misna dhigta dugsi quraan kariim markay da'deedu ay gaartay 15 jir ayaa waxa la geeyay iskuul macad ah ee degmada Dharkeenley iskuulka ugu baaxadda weyn oo ku dhex yaalo kadibna anigoo aad u faraxsan ayaa iskuulka la geeyay isla mar ahaantii maamulkii iyo macallimiintii si farxad iyo kalgacayl ay ku dheehan tahay ayay igu soo dhaweeyeen iskuulka kadibna waxa ay soo dhaweeyeen ardaydii galaaska waxaan noqday galaaska 7aad kadibna markii ay soo dhaweeyeen ismahan waxay dhahday hal arday ayaa jira misna dad aan la hadlin laakiin waxa uu u sheekeeyaa mar waliba qofkii hadal ku darsada misna anigu waxaan ahaa qof firfircooni ah oo dadka hadalka ku darsada waxaan arkay wiil aad u qurux badan ilaahay siistay joog iyo jamaal iyo dhowl cadeyn wanaagsan aad buu u qurux badnaa heebad gaar ahna ilaahay uu siistay kadibna aniga ayaan u tago noqday qofka hadalka ugu la darsada ma ahna sida qof hadal la darsada laakiin aniga ayaa dad hadal ku darsaday waxaan dhahay walaalkay magacaada kadibna cadda ayuu igu jawaabay haddana waa wiil aad u kaftan badan laakiin aanan aanan ka seenin afka la gelin cadde inantaasi wuxuu ku soo dhaweeyay jacayl iyo marxabayn iyo kalgacayl ka muuqata ardayda ismahan aad ay u jeclaatay iskuulka waayo waxay heshay macallimiin iyo maamulo iyo arday soo dhaweeya ismahan runtii markay erayadani ay ku hadlaysay misna aniga aad ay u faraxsanaa laakiin saqeebaha u dambeeyay markay si anba qaadaysay ayaan ilmeeyay ismahan runtii markii ay qisadii ka sheekeysay ilmo ayaa soo buux dhaafiyay indhaheeda ismahan runtii waxay dhahday anigu waxaan ahaa qof isku kalsoon aanan u dhiibanin qof naftiisa laakiin cadde ayaa iga awood badiyay cadde wuxuu ahaa mid kaftan low ah cadde wuxuu ahaa mid nafsadiisa u hibeey karo ama loo hibeeyo cadde xuralcayaasha adduunka ayuu ka mid ahaa dhageystayaal qisadani halkaas ay noo joogto waxaan la socodsiinayaa anigoo maxamed sayid cali maxamed jacayl halka farsamada oo ka qaaweynayay injineer wili qisadan qaybteeda labaad waa soo anbaqaadi doonaa qisadii oo hadal ciwaankeedu yahay ku kala tagi Facebook insha Allah rabbi hadduu qadaro qaybaha dambe ayaan si anbaqaadi doonaa qaybta labaad waxaan idinka tagayaa sidaas nabadgelyo